Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Muuqaalkan waxaan kaga hadlaynaa dhibaatada ay leedahay caadada qarsoon ee siigaysiga. Dhibaatada ay leedahay caadada qarsoon ee siigaysigu waxaa ka mid ah Imaamu Dahabi raximahullahu tacaala wuxuu yidhi, dhaqaatiirta qaarkood waxay yidhaahdeen siigaysigu wuxuu keenaa murugo iyo walwal, shahwadana wuu yareeyaa, kicitaanka xubinta tarankana wuu daciifiyaa. Axaadiista ku soo aroortay xaaraantinimadiisa waxaa ka mid ah Cabdillaahi bin Mascuud waxaa laga wariyay rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi, dhalinyarow qofkii awoodo inuu guursado ha guursado, guurku araguu laabaahe farjigana wuu dhowraa, qofkaan awoodinna soonku ha joogteeyo, wuxuu u noqonayaa dufaan. Caalimka weyn ee Muqbil al-Waadici raximahullahu tacaala wuxuu yidhi, xadiidkan ahlucilmiga qaarkood waxay u daliishanayaan xaaraam ahaanshaha siigaysiga, maxaa yeelay rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu u tilmaamay uuna ku hanuuniyey soon. Imaamu Sancaani raximahullahu tacaala wuxuu yidhi, maalikiyada qaarkood xadiidkan waxay u daliishadaan inay xaaraan tahay siigadu, maxaa yeelay hadday bannaanaan lahayd rasuulka sallallahu calayhi wasallam dadku wuu ku hagaajin lahaa, sababtoo ah siigada ayaa ka sahlan soonka. Caalimka weyn ee Ibnu Cuthaymiin raximahullahu tacaala wuxuu yidhi, caadada qarsoon ee siigaysiga gacanta iyo waxyaalaha kaleba waa kuwo xaaraam ah, waxaana u daliil ah kitaabka iyo sunnada. Kadib markaan soo sheegnay daliilooyinka kitaabka iyo sunnada rasuulka sallallahu calayhi wasallam, waxaa inoo caddaatay caadada qarsoon ee siigadu inay xaaraam tahay, aysan u bannaanin qofka muslimka ah inuu sameeyo. Guud ahaan daliilooyinka aan soo sheegnay darteed, waxaa habboon qofka muslimka ah inuu ka digtoonaado waxyaalahaas xaggooda, waxaana laga doonayaa qofka markay shahwadiisu kacdo inuu raadiyo dawadii uu rasuulka sallallahu calayhi wasallam ku hanuuniyey da'yarta, taas oo ah inuu guursado, hadduusan awoodinna inuu soomo, sababtoo ah soomku wuxuu yareeyaa shahwada. Waa inuu badsadaa soomka sida maalmaha ay caddadu jirto, yacni ayaamul biidka, iyo soomidda maalmaha isniinta iyo khamiista, iyo maalmaha uu soomkoodu sunnada yahayba. Intaas ka hor waxaa lagama maarmaan ah inaad tala saarato Allah. Qofkii Allah tala saartana wuu ku filan yahay oo wuu kaafinayaa. Sidoo kale, haddii aad ka mid ahaan jirta dhalinta caadadan samayn jiray, ogow weli inaad haysato fursad aad naga toobad keeni karto, ilayn waxaad haysataa Rabbi dembi dhaaf badan oo naxariis badane. Ogowno towbadu inay leedahay 3 ama 4 shuruudood. Ugu horeyn, inaad dembiga ka dhex baxdo. 2, inaad ka shalayso samayntiisa. 3, inaad go'aansato inaadan mar dambe u laaban doonin. Haddii uu yahay waxa aad ka toobad keenayso dembi aad ka gashay qof bani aadam ahna, waxaa jira shardi 4 oo ah inaad celiso xaqii aad qaadatay. Haddii aad xamatay ama aad caasayna, inaad ka xalaashato. Wabillahi tawfiiq. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.